haddii hadda aanu cafis liidhaho oo warqad aan ku dhaho hal iyo cafi mali cafinaya mali cafina anigu hebel aan wax liigu soo qabtay adeeg ku weydiinaa degmadiisa iyo halka uu magangelyada ku joogay kama jirin dhaqdhaqaaqa ururka uu u daadinayay dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed ee Daesh laakiin waxa uu u rogay xaqiiqo film laga daawaday aaladda xiriirka dadweynaha sida Facebook iyo Telegramka waana meesha uu ka bilaabmay safarkiisa argagixisanimo Facebook leh Telegramka aan xiriirkiisa liisiyay kadib adiga markaas lacag uu soo diray Muqdisho Garowe Boosaaso ayuu u maray inuu ka soo muuqdo filimkii uu daawan jiray Caleelo waa meeshii uu ku qaatay tababarkiisii ugu horeeyay tira ahaan waxa ay ahaayeen 30 oo ay 10 kamid ah yihiin Xabashi Ethiopian sida xogaha amniga ay bixiyeen marka laga reebo inuu kula dagaalamay Miraale buuraha gobolka Bari argagixisada kale oo ay ku baratamaan daadinta dhiigga ee Al-Shabaab ma jirin dagaalo kale oo la galay ciidamada Puntland buuraha lagu ordo qoriga la qaadayo lagu ordadi ciidan qaabku suubiye ma aragtay asubineen qof ciidan aan qaabku adi u tababarto u tabaran dadka waxay ahaayeen adi Soomaali iyo Xabashi Maxamed Cali Maxamed oo magaciisa afgarashadu yahay Abu Hurayra ayaa mar dambe lagu amray inuu ku dhex dhuumaaleysto shacabka Muqdisho oo lahjad ahaan iyo qalfoof ahaanba u qaadan karo qurba joog aan ka macaashin dhiigga muslimiinta Soomaaliyeed brief summary for your life for the first time that you have joined ISIS up to today now so and just speak English I think it will be very hard kuma kala duwan argagixisada farsamada ay ku gaadaan dadka indhaha u ah bulshada waxa uu qirsan yahay inuu daawada ka ahaa askari lagu dilay Bakaaraha laakiin kan dambe uu ku tala galay inuu bilow uga dhigto daadinta dhiigga ayaa noqday midkii uu ku fashilmay shantii bishii 8aad 2019 Allah u naxariistay waxa gacantooda ku baxay kaaba marketkii suuqa Siinay ee kiis kormeera saddexaad Maxamuud Cabdi Duxulo oo ka tirsanaa ilaalada deegaanka Xamar durbadiisa waxa ka falceliyay ciidamada amniga oo aan ka fogeyn goobta waa la dhaawacay waana la daweeyay iyadoo la marayo habraaca dawladnimada oo dhintay oo fogeen waa soo baxnay markii aan soo baxnay baa wuxuu igu dhahay adi inta ka aan kala baxno oo hana ordin oo igu dhahay ka nin oo askari ah ay soo horbax marka askari wuxuu dhahay shaqti kor u qaado dhahay shaqtiga marka kor u qaaday marka askari markuu uu arkay baasheeda waa ugu tuuray anna marka baasheedan soo baxsaday amaanka adi waa xabadeeda ma ku dhacin miya way ka tibtimiya ma garnaadi waalidkiis way kala go'een isagoo rumaysan inaan looga idin weydiisanaynin la dagaalanka dawladda uu u arko amar diini ah oo kaga yimid horjoogihiisa Daesh Cabduqaadir Muumin naas markaan aan tagay amar la soo xiriiray oo sheegay waxaan dhahay barnaamijkaas waxa isku biiray markaas waxay dhahday ma dhici karto waxaasa markaas waxay dhahday soo laabay dhahday waxaan ku dhahay may soo laabay dhahday kadib waxaan dhahay way adagtay ugu dhahday kadib waxay dhahday soo xiriirin ana ila soo hadleen hadda kaama qaban hadda telefoon أنت من تقريبا 2 سنة عمل 1 سنة برعمل هذا وأوك قومين يعني مال عدلا أوك تجان كوحدي ولضوا بناء داعش كم صح سنة وأيوه هدي أو قف يعني حبد مركي الأولى فناي حسين كوجوي حيجوا ما يعني shantii maaj bishan inuu ku jirno ayaa la soo gabagabeeyay maxkamadeynta eedeysanaha maxkamadda hortaagan maanta ayayna maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in dambiile Daesh Maxamed Cali Maxamed Faarax uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamuud Cabdi Duxulow Dawiil cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho